gudoomiye Ciro iyo waftigiisa ayaa dadweyne iyo gaadiid tiro badan waxay kaga hortageen meel aad uga durugsan magaalada Ceerigaabo kana xigta jihada galbeedka halkaas oo gudoomiyaha iyo waftigiisa loo soo horkacay dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo oo halkaana dadweyne aad u tiro badan oo wadooyinka waaweyn tubani sacab ku soo dhaweeyeen gudoomiyahan iyo waftigiisa kadibna halka dadweynaha soo dhaweeyay uga mahad celiyay hadaladiisii waxa kamid ahaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga gobolka Sanaag degmada Ceerigaabo maanta nagu soo dhaweeyay halkan degmadan waxaan si gaar ah u sii mahadnaqayaa beelweynta habaryoonis yihiin oday dhaqameedyada hadday yihiin xildhibaanada hadday yihiin dhalinyarada hadday yihiin aqoon-yahanka iyo hadday yihiin waxgaradka kale waxaan waftigayu ka kooban yahay wafdi ballaaran oo ka badan 80 xubnood oo ku jira qaybaha kala duwan ee bulshada hadday yihiin oday dhaqameedyada hadday yihiin xildhibaanada hadday yihiin dhalinyarada hadday yihiin aqoon-yahanka iyo hadday yihiin waxgaradka kale ee beelweynta habaryoonis